ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كلمتنا waxay ku saabsan tahay cibar iyo waana qaadasho ku sugan dad nool. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu aayadda ku leeyahay qisasta faraha badan ee quraanka ku jirta waxa ku sugan cibrooyin iyo waana qaadasho iyo tusaale qaadasho. waxayse ugu sugan tahay dadka caqliga leh, dadka fikirahaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbi uu siiyey. qisadeenna waxay ku saabsan tahay nin nool. waxa qisastu ay cibar u yihiinna waxa weeyaan ilaahay sunnadiisa waa hal waay. sunnatullaahi fi lmu'miniin waa macruufa. qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala waddadiisa say tahay u qaada, ilaahayna abaalkiisa wadduu u jeediyey. qofkii alla khilaafana ilaahay wadduu u jeediyey. walan tajida lisunnati illaahi tabdiilan, marnaba isma beddelayso. markastoo wanaag la sheego ilahi wuxuu dhihi wakadalika najzi almuxsiniin. dadka wanaagga loo sameeyey waxaa la mid ahoo saasoo kale ay sugaysaa ciddii waddadooda raacdana. sidoo kaleeto marka laga sheekayo ummado la halaagay iyo dhibaatooyin ku dhacday, wakadalika najzi aalimiin, daalimkasana jidka unbaa u falan waay. qisada marka cibarta kelmaddan wax weeyaan waa cibar iyo cidaad ku saabsan saaxir taa'ib, nin saaxira oo toobad keenay. ninku inuu saaxir yahaa dadku uma aqoonin. waa sheekh suudaani ah. nolol baa iigu dambaysay, arday aragtay waxay ugu dhaheen wuu nool yahay, kharduum buuna joogaa. sheekh xaamid aadan baa la dhahaa. ciddii si fiican uga boganaysa qisadiisa internetka haddaad gasho youtube-ka aad gelisid assaaxir ataa'ib assuudaani wuu kuu soo baxayaa. assaaxir ataa'ib assuudaani muxaadaraad fara badan uga sheekaynahayo wixii qabsaday iyo wuxuu ahaaba dhan uga sheekayn. muxaadaraadkiisaas marka 8 muxaadaro camal baan aniga ku arkay uga sheekaynahayo siduu ahaa. طرق القادرية iyo طرق fara badan baa meelahan joogta, laakiin xagga tijaaniya iyo طرق naqshbandiya oo meelahaas aasiya طرق fara badan weey. marka asaga طariiqadan buu ka tirsanaa. weli waxaan gaaray buu yidhi welinimada heer qutbi. qutbi waa maxay? aqtaabta adduunka kala haysa waa 4 طariiqo walba. adduunka dhan bay 4taan kala hayaan. midu bari buu mas-uul ka yahay, midna galbeed, midna waqooyi, midna koonfur. asaga marka qutbiga koonfureed buu ahaa. cibar iyo qisas fara badan buu sheegi doonaa oo xaqaa'iq ah iyo waxyaabuhuu sameeyey iyo siduu uga toobad keenay. bidaayada uu ku bilaabay xerow wuxuu ahaa
quraan u xiraystay sidoo quraanka ugu xiraystay ayuu wuxuu bilaabay sheekhiisii cilmi u bilaabay markuu meel gaarsiiyay wuxuu yidhi waad ila sinaatay haddee orod sheekh kale aad suu gudbahay sheekhi ugu saray dariiqadu ugu tegey 5 sano buu arday u ahaa shuruud baa laga qaaday marka shuruudda laga qaaday waxa weeyaan haddaad sheekhan xerow u noqonayso laa tactarid fatantarid meeshaan culimmadan marka loo yimaado shareecadu waa laba nooc cilmu daahir oo ambiyada iyo atbaacdooda iyo waxaasaa ku dhaqma oo yaqaana awliyadana cilmu albaatin oo daahirka ma ahee wax baatin ahoo siru shariica siru laayaat siru qur-aanka bay yaqaanaan marka ayaga waxooda wax la fahmi kara ma aha adiga marka haddaad xerow tahay hal su'aal ha weydiinin sheekhaan aad xerowga u tahay haddaad weydiiso waa tegaysaa waxyaabo ka sheekayn doon marka waxyaabo taamaat weeye shirki sariix ah gaalnimo cad oo uu isu dhiibay buu ka sheekayn doonaa maxay u kalifay buu leeyahay waxay u kalifay waxaa la igu yidhi dhegayso shareecadu labadaas qaybood ay u qaybsantaaye owliyada cilmi la duni bay leeyihiin ambiyada way ka sarreeyaan cilmigooda wax la fahmi kara ma aha adiga marka haddaad damacdo inaad fahanto waad wareeraysaa waxba ha weydiinin tusaale waxaana loogu soo qaatuu yidhi qisatu nebiyullaahi khadir iyo nebiyullaahi muuse calayhi salaam waxay dhaheen nebi muuse cilmu daahirkuu garanahay khadirna cilmulbaatinka marka waa kii doonta dilaaciyey muuse uu yidhi war maxaad doonta islaameed u dilaacinaysaa soo kuma dhihin waxba hay weydiinin waa kii wiilka meel inta qabtay dilay markuu dil war wiilka maxaa u dishay soo kuma dhihin muuse aniga waxba hay weydiinin derbi meel dumahaya markii saddexaad adigu marka waxay muuse ma awoodin inuu xamilo wuu xamili kari waayey cilmu baatinkii adigoo xir waa sida xamilaysaa marka waa masala khatiira jiddan waxaa laga soo qaaday nebigii ilaahay oo kaliimullaahi ahaa in oo uusan baatinka baatin shareecada ay leedahay oo awliyaduna ay yaqaanaan khadirna uu garanahayay muusan uusan aqoonin baynama ilaahi subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu ku caddaynaya inuu khadir nebi ahaa waxaan uu samaynahayo ay shareeco ahayd ay ahayd wax ilaahi subxana wa tacaala uu amray isagoo ka warramaya waxuu samey wuxuu leeyahay fa araada rabbuka ilaahay wuxuu doonay ilaahay iraadadiisana cid ka warrami karta oo nebi ah inuu ilaahay ogeysiiyey ma jirto kadib aayadaha aakhir wuxuu ku sii leeyahay wamaa facaltu waxaanan sameeyo dhanba muuse uma samaynin can amri aniga amarkayga ma ahe waa wax ilaahay uu amray waay khadir marka waa nebi ilaahay muusena waa nebi rasuula muusa ka fadli badan ululcasmi min rusul buu ku jiraa laakiin qofka marka la dhuminahayo oo bismi diin lagu dhiminahayo laguma dhumiyo kaalay gaalow laakiin wax baa loo beddelaa wax baa loo gediyaa waa kuwee wuxuu yidhi hum man kaana calaa midli maa ana calayhi alyawma wa asxaabii waa daa'ifada mansuurada waa dadka aniga waxaan ku suganahay iyo asxaabtayda waxay ku sugan yihiin ku sugan weeyaan ciddii aniga waddadayda iyo waddada asxaabta raacday waxaa su'aal ah asxaabtu ma nebiga wuxuu ku sugnaa waxaan ahayn bay ku sugnaayeen soo nebigu wuxuu sugnaa keliya naguma filnayn asxaabta maxaagee loo wadaa marka xadiidka kaleeto calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin alkhulafaa raashidiin sunnadooda iyo sunnadayda qaatuu yidhi khulafaa raashidiin marka sunnadooda ma sunnada nebiga ka duwanayd soo tii nebiga naguma filna asxaabta xaggee loo wadaa marka waxaa loo wadaa markaad iskhilaaftaan oo aayad qur-aana laysla qabsado xadiid laysla qabsado ninba meeluu la aado noow xadiidkan aan u bandhigno fahm salaf asxaabtii maxay xaggay mariyeen waddaday mariyeen unbaa la mari wax ka duwan lama keeni karo cinda tanaasuc marka la isqabsado in halkaa un la aado tafsiiraysan asxaabtii ku fasiran qur-aanka qofkii ku fasira waa mubtadic waaye walow asaga qur-aanba ha ku dhego marka alxaasil wadaadka marka wuxuu leeyahay waxaasaa laygu qanciyey sheekhii marka waxaa laygu qanciyu yidhi sheekhaanaad arkayso asagoo khamri cabbahay haddaad aragto isagoo faaxisho samayn haddaad aragto adiga waxaad waa indhahaaga waaye laakiin asaga cibaaday u tahay su-aalna ha weydiinin wuxuu yidhi 5 sano baan waxaan ahaa buu yidhi kal meyd fii yadi alghaasil qof meydahoo qofka dhaqahayoo kaleta ah baan 5 sano ahaa markuu khidmadeyda la yaabay anigiina daacad aan ahay waxaan dhanba iga dhaadhaceen yuu wuxuu yidhi waxaa dhintay dariiqada qudbigeedii
aqdaabteeda afartayd mid ka mid ahaa dhintay markaasuu wuxuu yidhi dhegayso qudbi baa dhintay booskiisaan rabna inaan ku gelinno waa darajo caaliya waay marka asaga wuxuu soo maray naqiib nuqabaa awtaad waxyaaba ay leeyihiin kuwa adduunka ku taagtaagan adduunka hayee buuraha kaleeta iyo kuwaas way awliyada asaga marka hadda waxaa loo diyaarinaya inuu qudbi noqdo marxalada qudbigu ku gaar uu ka sheekeeyey wuxuu yidhi sheekhi wuxuu yidhi waxaa lagaa rabaa inaad doorato saddex qur-aanka qaar ka mid waa inaad doorato dariiqaa lagu barayaa dariiqadaas baad marka ku cibaadaysanaysaa khalwaad samaynaysaa ixtikaaf meel baad gelaysaa cibaadaad samaynaysaa ayaana baad cibaado samaynaysaa nimada ee sarraysa ee mukaashafaadka lagu bandhigayo lawxul maxfuudka maxaad ku cibaadaysanaysaa u fiirsada marka shaydaanka dadka meesha ugu hor isku baranayo waa tawxiidka waay horta waa inuu tawxiidka buriyo islaamnimada uu buriyo wadaadka marka wuxuu leeyahay waxaan doortay 5 aayadood oo quraanka ah oo midiba 10 qaaf ay ku jirto shantii aayadood sheekhu wuxuu yiri marka waad horta heshay midaan laakiin seed ugu cibaadaysanaysa shantan aayadood saddex dariiqo midkood baad ugu cibaadaysan doontaa wuxuu yiri waxaan doortay 41 bari inaan cibaado galo xaguu ku cibaadaysani qol yar oo dhooba ah waa tuulo meesha la joogo yiri dhoobo qol yar oo ka samaysan oo ku yaala magaalada meel ilaa 3 kilomitir u jirta on hal meesha laga gala bas leh daaqadna u furnayn laba kasta ilaa xirana wax iftiina aan soo galeynin halkaasaan 41 bari rabaa buu yiri inaan galo waa waqtiga aan doortay buu yiri 41 waa la galaa 12 13 3 bilood aniga 41 maan doortay ayadii quraanka ahaabaan meesha la galayaa buu yiri ogow wuxuu la aaday meesha ayadaha quraanka sii yeeli doona wuxuu yiri wadaadkii 3 midkood samee ayadaha quraanka waa inaad markaad akhrinayso mid kasta wax dhex galgaliso bismillaahir rahmaanir rahiim soomaha bismillaahi baad dhihi waxba lagu dardari marka bixaqi fulaan bixaqi fulaan bixaqi fulaan waxyaabo ishaq sheegu yar magacooda aan garanaynin wuxuu ku soo dar bixaqi nabi sallallahu alayhi wasallam bixaqi sayidina abubakar bixaqi fulaan bixaqi waxyaabo fara badan waxaan kale waa maxay ruuxaaniyiin waayu dhahay waa sir suurah dibda ku sheegi doonaa magacyada jinniyada ugu waaweyn waaye zucamada nimanka hogaamiye jinniga iyo umaradiisa kuwaas magacyadooda weeye waxyaabahan markaan lagu leeyahay ruuxaan waaye magacyada ruuxaanta waaye malaa'igta suuradan u shaqeysa aayadan muxuu ahaa u khidmaysa ba magacyadan iska leh bismillaahi waxaas la dhexgelin arrahmaan waxaas la dhexgelin saasoo kaleeto fiiri marka intaas markuu quraanka ku sameeyo qofkii quraanka asaga ahaa ilaahay muxuu ka kasban hayaa ilaahay reer bani israa'iil wuxuu lacnad iyo cadaab rijzi aliim iyo cadaab adag wuxuu u saaray markii hal xaraf ay ku dareen hadalka ilaahay markii lagu yiri waqulu hitta maxay dhahan hinta nuun bas ay ku dareen waa nuun waa ninkaana muxuu ku darayaa magacyadii shaydinta kuwa weyneed buu dhex gelgelinaya saas marka waa dariiqada kale wuxuu yiri dibdib baad u soo akhrin aayada gadaal baad u soo akhrin Abdurrahman Muhammad Ali sallallahu dhaho Ali Muhammad Abdurrahman saasoo kale quraankii dib loogu soo akhrin dariiqada saddexaad wuxuu yiri xaraf dib ugu soo akhri zayd sallallahu dhaho days saasoo kale taad u akhrin waa quraankii waay sidaas marka khalwada cibaadada la galayaa quraanka ku jeeskiisa waay iyo ku ciyaarkiisa waa waxa koobaad ee lagu mudanahayo welinimadaas uu gaaray wadaadkaas meeshii markaan galay buu yiri aan la tagay wuxuu isiiyay buug meeshii buu geliyay cibaada loo gogo ayaa buu yiri cibaada marka loo gogo adduun waa inaad ku zaahido noloshaada marka wada xadidiisa maxaad ku noolaanaysaa 41daas bari waxaad ku noolaani maalinkii 3 xabbo timir ah iyo 3 koob oo biyo ah subaxdii hal xabbo timir ah duhurkii hal xabbo timir ah habeenkii hal xabbo timir ah iyo koob biyo mid walba la socdo tiro go'an baan la galay buu yiri meesha 120 iyo waa aan ku go'an tahay yaan meeshii la galay buu yiri meeshii ugu soo xiray markuu gali wuxuu yiri waxaad samaynaysaa intaad meeshan ku jirto ma tukanaysid horta 41 bari
لا تدخل عبادة في عبادة، عبادة هلسة هتكون جرتا مركا عبادة كلمة جرت صلاة حق يسكدك محاكا لكن مركا تكوغ الشباب لا ركعة تكون يساوي وحسنا واسميون ليه لبض ركعوا أنتو كذي وحويري وحمركم ماشي كان هبين برب ويسوى ذي ويري مركاسو ماشي يسوق لي وحويري لبض ركعوا أديق وقاوم باتو كنيسة مردقة سيدي إلهي كو أبو ريئة فاتحة يقول الله الكافرون ما تكو آخرين مدة هوري مدة دنبانا قل هو فاتحة يقول هو الله تكو آخرين بل فيري أديق اللخبطة إيا محوءها تلبيسك إنتو اللي يجيهي markaan yaa wuxuu yiri war adiga dhageyso meeshan yaa ku la jira yaa ku arka waa habeen bar cid miyaa ku aragta maya oo hadii maryaha ilaahay baad ka xiran hadaad kun mar xirato ilaahay ma ka qarsoomaysa meesha cid kuma aragto sidii baan marka laba rakac anoo qawan ku tukaday wiiri meeshiina isaga dhex jiray afartankii bari markay dhamaatay wuxuu yiri wadaadku laba shay baa kugu dhici doona intaad meeshan ku jirto mid waa imtixaan laba imtixaan baa ku qabsan doonto mid waa lagu cabsiin buu yiri midna shuruud baa lagu keeni doonaa ruuxan baa ku iimaani shuruud bay ku dhigi doonaan cilmu laduni wayaan waa cilmiga anbiyada iyo atbaacdooda dadka daahirka shariicada aan ahayne wax walba lagu dhaho hay'ade weliga hadaad ka hor timaado waad meesha wad ka baxaysaa ugu wax kasto lagu dhaho waa inaad hay'ad dhahdo meesha marka waa la imtixaanay buu yiri cabsi farabadan wuxuu yiri hadaad cabsooto خلاص وحاكو قلها هذا ولا تصبح حسا وفعلا وحير قفك أسوأ ولا ما ماشت كل صبحي كوش وأصحابتي يسقلي وحير أيقو ولا ما كصبحين محيل عبسيدة فرح بدن أفرح يودو شيء وقفك وجيني وكو قلا مركو أذو عبسده مركو عراضه مركو نهامانسي فرح بدن قفك أو تاجه هيو وحليه هي مركا عبسيدة كذب مركا يكون فرت كبير إلى ماتي أن أنت قرآن كأن كو عيارها هي وماشي صلاة الآن أنا هاي أيها هبين كده بوقت مركو دمادي وحقيقي مد بويري عبسي فربضنا لبنية طبعا حيوان بهل بقى مد بويري قدال بهل وجاك وجهي سنة قبل بنا آذنا أنت يقروح لا هذا هيقروح لا له وجهي وقبرها وح ولا بنا آذن لا قروح ولي ما أركن بوليه قدالنا وحيوان ماشي يقول وحو يري أنا وحنا هي ملك إلهي وكوس دري روحاني بان هي بوي إلهي بارهالك أنا عبادة أنا هو أقبلي بشارة كوضة وما حب بشارة ذا إن الضوء مدي كبح ذي مرفوع عن التكاليف أنت التكاليف أنا لقاك قاضي ولي إلهي أتهي من الآن علم اللوح المحفوظ بعد مركة في رسالة يساعدك هل كاسد علم المكاشفات واصل باتهي إلهي باتكوحي رسنتي شروط دي مركبة هدنا دبت الله وما حي وين إلهي عايده سبحانك يا رب وين رسولك عايده وين الملائكة عايده وين قرآنك إلهي عايده شروط ماشي اللي قاعدة هي وحي أهرت الله لا تعترض فتنطرد وانك وليها وحيابها ونقون دون الدب ولقان دون كرامات كظاهر الدونة وكرتمي الدونة شروط لقى قاعدة هي ويساس عبان بل كرامات كاس أبالك وحن أبالك إليهم بالعرك الدونة وحليه هاي وإن هذا سومن ولقى وإن هذا القرآن كإهانيسته أو وحنا جالسين كقرطة يستدعوا إهانيسته كلا دو إهانيسته وحليه هاي مساجد وين هذا جمعته كنين وين هذا الإمام نقنين سفكر وين هذا كنت كنين مساجدها مركز يحتاج وقته شروط ما لقى عصرنا سلا عصرنا وين هذا تكنين شروطا مركز وحليه هاي حد كم وضع هيام بيرهد وذا أوفي لكن هذا ولا قاعد تعهد مركي حد مد بات كوا فقيسا أوضن حد فلنيسا ماشي اسكو فلنيسا ولا أنت كلنا مركز صوت أبهتد إن شادين تكون خدميسو أولي لو يمادو وحن بالغار بالده وحين شياطينتي كالميسنا هيو مركز أصير الروحانيين باكو كالميسا لها مركز يو أديكس يو وتقرب يا أو مركز بو سمين هيا لكن هذا مد بدو فينيسا وحيري وحان مركي أن وافقي بو يرو هذا أو فين هيا يرويري إن أنا ولي صان سومين وحليه تضبي يتبان سنة بان ولي أها تضبي يتبان كاسنة ما سومين بوليه تضبي يتبان سنة قطبي أها ماشي مركا وكصبحي وحكى ظاهري مركا كرامات
waxaa sugahaya asaga waa suudaan darafkeeda meeshuu joogo dad isaga yimid morocco suu ka sheegay asaga mauritania nigeria niger tashaad mali bariga galbeedka afrika oo dhan ummad isaga timid oo weligaan ka soo baxahaya meeshaan ee qudbiga ah sugaysa oo rabta inay barakada ka qaadato oo nuqabadiisii ah baa sugaysa oo fadhidaba maaragtay meeshii sheekhiisii halkaasay ku sugayaan markuu sabax mar karaamaad buu la soo bixi doonaa lacagta uu bixiyo karaamaadkan ku helayana waa middaas hadda uu meesha ku sameynaya khalwada karaamaadkii maxaa ugu horreeya intuusan ummadda u tegin horta miduu helay waxa weeyaan saaxibul khatwa buu noqday hal tilaabo ayuu wuxuu ku gaarahayaa meel alla meeshuu rabo isla markiiba wuxuu yidhi indhaha isku qab buu yidhi indhaha isku qabtay gacantuu isaaray wuxuu igeeyey buu yidhi indhaha kala qaad meel 40 kilomitir noo jirtaan tagay buu yidhi cirka dhowr buu yidhi xuruuftii carabiga ahayd baan ku arkay buu yidhi xaraf kasta wax isku hoos yaalaan oo leeyahay xarafkan sirtiisa waa xaraf kasta iyo sirtiisa khawaatiim sawiran aad u fara badan waxaa ka mid jiro khaatim Suleymaan khaatim uu igu yiri oo haddeertan khaatimka yuhuuda calankeeda ku dhagan ah calaamada ku dhagan ala kulli xaal meeshii waxa ku qorneed biiro xuruuf iyo arqaam fara badan adoo saddex raqam oo saddex leen ah tuuga saddex leen tahay leenkaas marka la isku daro 15 buu noqonayaa leenkaas 15 xagada isku darto xagada isku darto xagada isku darto 15 bay wada noqonayaan waan arkay arday waxaan isku xujaysanaysa hadda ka hor baan arkay intaan wadaha ka maqlin arqaamta meesha ku qoriyaan wuxuu leeyahay khaanadaha waxaad gelisaa arqaam dhanka 15 ka noqonaysa wuxuu yiri cirkii maalkaas ku qornaayeen buu leeyahay habeenkaas meesha halkaas ku qornaan 15 dhan walba ilaa hadda ma ogi buu leeyahay 15 waxay tahay wuxuu yiri marka meeshii baan ka soo baxay ummadii baa soo dhaweysay sheekhi baa yimid meesha iga waday anigoo weli noqday qudbi min al-aqtab shantii qud mid kamid ah noqday karaamada ugu horreysay iga daahirtay wuxuu yiri ceelal baa wadadayda ku yimid buu yiri ceelashii marka wuxuu yiri aniga kama leexanayo dadku hararaha iga marayaan aniga wuxuu yiri ceelka saan uu socdo ula la wadaa buu yiri qasabka ulihiisoo dheer markaasa ushaasa ceelka afkiisa la saari ushii baan ku kor socon buu yiri marka ama hadda daraf aan uga istaagi xaga aan uga istaagi waan ka gudbi ushii marka waa la qaadani ushaan sheekhaasa barakeeyo oo ku socday magaala la geeyni dhowr ceel ilaa 7 ceel baan isu maray buu yiri sidii ظاهرka waa saashir laakiin fil haqiiqa wuxuu yiri meesha wax igu yimid horta oo gabadha wajiga uga eka waa jinni wuxuu yiri hogaamin doona 286 jinni oo isugu jira shayaatiin iyo marada iyo cafaariit asagana hogaamin doona sahsuhu bal dhaha buu yiri waa shaydaan buu yiri ninkaas marka wuxuu yiri wuxuu gacantu ii saaray ceelka gacanta ku korsocon buu yiri ushaan ayada maba maaragtay dadkuna ma arkaan karamadii koobaad taas bay ahayd buu yiri marka laga reebo saaxib al-khatwa meeshii baan tagay karamaadka laga qaatay wali baan noqday dadku baryaan karamaadka iga daahir waxa kamid ah leeyahay بالمناسبة كرامات كان ظاهرة هي إمام الشافعي وحويري رحمه الله تعالى حداد أركته الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة حتى مسلمين هاي إن الوين سرعادي معها وحيابه خوارق للعادة خوارق للعادة شيطانك حقي سيك إيمان كرام سيمرك الوغاني وحان إني خارقا ويهي وح سبب الشيطان إي وح أوقف كانوا قمية هي إمام الشافعي كان هذا دار تقف بيها كوكر سعنية أما عرك الدولة هي هكوك تسومين هبا هدين ولي إلهي باتها هي نينك وحيابه سمين دون أودر ودتك كوكا عيني إنه ولي إلهي هي ووحان كم وقنا هي وحكوك تسومين حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة نينك كان فيري عمل كيسي أمر كيسة كتاب كيس سنة أوبندك حدو عمل كيس وفقسين كتاب كيس سنة وقف قمنوا ولي إلهينا إلهي أم باكو شغل إلهي بحقيقة دي سوق مركا كرامات كظاهر نينكا وحلية هاي إسلام با مركان ميل دقي أو قطب نقضي دادك دان أي إباريا هيان يا إسلام با وحوير مالين تولو سودان كم داهي كسفرتي بوير
dad bay la socotay oo way ka hartay way la socon kari weyday kaliyeed waa iska sii socotay aaska madoobaaday buu yiri markay cililow tahay oo waqtiga uu qariib yahay qoraxdii dhici rabto ayay waxaa jidkii u hor istaagay dhibi yey bahal waa meel wuxuu yiri ay waxay maraysaa meel oo dhan walba geeduhu ay ka xireen oo qofka uusan jidka dhinac wala leexan karin halkaas markuu istaagay waani adiga buu yiri hadii islaanta waa kaliyeed waa yaabtay maryaha isku xirxirtay waxa la waxay samaysay garan weyday markii yaabtay bay waxay tiri sheekh xamidow de waa weligii hadda meesha ka soo baxay dadka dhan ay xoogaa maaragtay karaamaadkiisa ogaadeen iga badbaadi waxaan isla markiiba wuxuu yiri islaantii waxa uu soo degay suuradayda cirka markaasuu bahalkii qabtay uu la kacay wuxuu yiri kan mar dambaba adduunka maba sii joogahay waa la kacay suusi waday daruuruhu la galay buu yiri islaantii meeshii bay iska martay waa maalin galab jimcaha uu yiri axadii bay ii timid buu yiri marka gurigeedii bay tagtay neef ariyahay soo qaaday waxay tiri sheekh xamed oo maanta balaa iga badbaadiyay waa u tagahayaa wadaadkii meeshiisu iska fadhiya wuxuu yiri anoo iska fadhiya oo xirtaydii hor fadhido yaa islaan neef orgi ah wada xaggaas ka muuqatay buu yiri ma aqaanin waxa la waxay tahay islaantan kama warqaba asaga wadaadka dhan ee xagga wax ku badbaadi leeyahay wuxuu leeyahay asaga ka sheekeenay qisada anoo fadhiyo islaan xagga ka muuqatay dadka lama soo galiyay marka nimankan oo awliyadan heerkan gaaray qof walba soo socday sigma yimaado cabaar baa xagga lagu hayaa waa inuu hor xaggaas inta safar iskabaha soo siibo mar dambe loo soo ogolaado islaantii marka xagga inta lagu hayay buu jinnigii ugu weynaa sahsahoob waa ninkii de meesha ugu yimid ee hogaamin waxaan dhan baa marka u sheegay wuxuu islaanta soo socota ma aragtaa maalin hebla jimcaadii la soo dhaafay baan aniga iyo hebel u tashanay buu yiri saddexna waa u tashanay buu yiri waa shaydaankii baa uga sheekeynay cifriidkii hebelna wuxuu iska dhigay buu yiri dhibi iyo xayawaankaas anigana waxaan iska dhigay suuradaada mid kalena waxaan u dirnay inuu waswaasiyo qalbigeeda oo uu adiga kugu soo rido islaamnimo sheeganaysaa أحد أئمة الدعوة وحودها مشركين تبرج هرج جرتي إيه مشركين تهدد جرتا مشركين تهدد جرتا كدران ما حيقدرينهن إلهي بريديسا ضدك مشركين تاهي قال هذا النبي محمد حلقي سي جوكتي مركي حالات دو أي كدنا ناتو أو يبيح كروايان إلهي بس يبريتشين لكن ضدك هذا شوقير أو شركة السماية حالات دو يبقى كدران تاهي مركي خطرت كجيران بيبقى شرك بدينهن حالات marka meesha ugu darneed marayso bayba ilaahay waxaan ahayn bariyahayaan gaalada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ula dagaalhayana ida rakibu fil fulki da'u allaha mukhlisina lahu din sanam iyo wax kale la bariyahaya male ilaahay kaliya bariyahayaan qul man yunjiikum min dhulumati al-barri wal bahri tad'una tadarruan khafiya ilaahay bas ilayhi xaalad marka ilaahay dadka laakiin qaar muslim sheeganahaya markay xaaladu ku dhanaanaato meesha ugu darneed marayso bayba shirkigooda ugu sii daran yahay وسيدة إسلام تاو كله يدك أولياء هذا بري هاي مركي حالته كلنا ناناتو على كل حال مركي وذات كده ما يقولي وحليه أنت ماشي أنا فدي إسلام أنت حاجة أنت اللي هي بو إيجا شاكينه وحليه هاي صدق هذا النظر أنت أسوس سميني أنا كنا صورة هذا عن قاطعه أنت أنسود دقيقة بحالكي قاضي وير مقعد أساس بالدها قولي جالس يكتمد حالته ده نبو إيش شاقي هذا بقى يريد مركي هل واحد مركي أمضى فدي إذا ماشى كما ورقبان ما أنا مقله هيان سلانتي بقى لسود داي سود أبو بير حاجة بطول ما قاعد جميع تقانها حاجة بطول بتهاي ورساني يكوبت بادي ما همان كيدوي مركي وير هاي بلدت وشة وحي أدماركتي نضح مري ماشي مركا كهذا شيء وير أو يقعد يسوحي وحافر ديا دوشان هذا الشيء إني ضدك ولا صعدا فرديا سمعت وحن كهلي ولا هاي سلانتا عشان كذا ماله البقرتي وكرامات كي كظاهرة واي وحبضنا هذا وي ظاهران أصل لعقت اللي بحينا ومدة هران صار شجنة أو قلك حنكها وكسب بحي كرامات كظاهرة وحليه وحكم إذا
in dadku qaar inta ii yimaadaan i dhahaan kaalay noo noolaysii qof baa la dilay inuu soo noolaadaan rabnaa in la dilay in kale kama warqabno dhibaataan haysato qofkan in la dilay baan ka shakisanahay nakiciyaan leeyahay uu yiri maarta qabrigiisa noo kaxeeya waan aadina oo sheekh maxaa sameynaysaa waa soo nooleynaya maada wax nooleyn kara waa nooleynaya buu leeyahay ilaahina wuxuu leeyahay يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا هل دقسم أبو الكرام وحل إلهي كسر دن هذه ستجان بنا ملائكة يا إنسي يا جني دقسم أبو الكرام ولو اجتمعوا له أبو رسكناف وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه دقسم هذو وحل عرره عد كسر ذي كرتماله واحد سكتان ما كسر ذي كران إني أبو ران إسكداي asagana muxuu leeyahay qof dhintaan soo nooleyn dadka waan dhihi jiray wiir laakiin qaabkii u fuli jirtay qaabkii buu ka shaqeynaya wuxuu leeyahay waxaan qadimayaa qurbaantu qadimay waa maxay wuxuu leeyahay maalinkii shuruudii la iga qaaday ee aan waafaqay ee mid kaliya aan meesha ku fuliyay markaan hadba xaajarba in la ii sameeyo baan mid kale oo la iga dalbanaya waxyaabihii meesha lagu soo ilaahay istihzaaga diintiisa ee quraanka ku ciyaarkiisa caayida iyo diinta aflagaadada ilaahay ayaa la iga dalbahay markaasaan oofinhayaa buu yiri markaas ii shaqeynayaan markuu kii ii shaqeeyo wuxuu ii raadini qofkan dhintay qariinkii la socday mas'uulkiisii jinnigu waa xayawaan waxay kala leeyihiin imaaraad iyo zucama ay kala raacsan yihiin marka ninkii xukumay qariinkaas yaa la ii raadin buu yiri markaasaan asagii haddana qurbaan iyo shirki baan u sameeyni markaasuu wuxuu ii soo amri qariinkii qofkan la socday qariinkii baa marka dadkii baan soo kaca dhihi qabrigii baan tegaynaa yaa hebel soo kac baan dhihi qariinkii baa nafsa suura soo yeelan marka qariinkii jinniga ilaan qof walba waxaa la socda qariin min almalaa'ika iyo qariin min aljinn waa kan qariin min almalaa'ika ilaahi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay waqaala qariinuhu haada maa ladaya catiid maalinta qiyaamo malafkii wuu dhiibahayaa uu naga qorahayey qariinka jinnigaana qaala qariinuhu rabbanaa maa adqaytuhu waa kan nabiga sallam uu leeyahay qofkaas qariin baa la socda adigana soo kula socda anigana uu la socda ilaahay baa igu kaalmeeyay uu islaamay marka la yaamuruni illa bi khair qariinkii marka shaydaanka ahaa baa qofkii iska soo dhigi ciiduu saan kala dhihi meeshuuba ka soo istaagi waaba hebel ama heblo meesha taagan war hebel haye sheekh khayr waan fiicanahay khayr waa ladanahay sheekh waa ladanahay waa ilaahay mahadi waxaan ku weydiiyey ma lagu dilay mise bas ilaahay baa u dhimatay bas baan u dhintay qofna ma idilin war ma maqlaysaan haa ma ka shakisantiin maya kac qalbiga qabrigaaga ku noqo ciidii baa saan idalaq sumcad waxaan heli buu yiri meeshii qof kasta weligii ugu sarreeyay qudbi adduunka waxaan ahay buu yiri ninka bariga adduunka oo dhan baan hayaa buu leeyahay aniga مسؤولك قطب من الأقطاب واي ومدي مركب وحي آمنيسا أوي دين تودي وحاوي علم ظاهر وأدينك وحا تقانان لا يخلقون ذبابا ولا يجتمع له رسوش على تمد أولياء هذا واحد بحر بحر ولا منقل كرو هذه واحد آمسنت هاي حق دي قواي معناه وقال لي مكوين ماله والدين تدان ظاهر كذا ودان كبحوا وإلا هدان مسلمين وحنا آمسنا هاي لن يخلقوا ذبابا وحكى سدي ستكان أفمن يخلق كمن لا يخلق وحامرك أن كم إذا وحيابها أو شيء أولي نمديس وكسوجها هي ادعاء علم الغيب علم الغيب كان شاقنا أو نقانا بوير dadka waxaan ku dhigi kaale qof walba waxaan uga sheekan waxa la wuxuu yahay markaasuu ka sheekay wuxuu yiri cilmi ghaybka waa labo ghaib waa nisbi oo waxaan anagu sheeganay inuu yiri ghaybka nisbiga awaay qofkan ghaybu ka yahay laakiin qofkan kale uu yaqaan qof cusub hada meeshan imaanahay magaciisa meeshuu ka yimid waxa la wuxuu u socdo xaajadiisa asagu uu yaqaan laakiin anagu ma naqaano kaasoo kale aan sheegan jirnuu leeyahay ummadana ku siri jirnay لكن غيب كان أو ماركتي مستقبلك حتى عقلي لو قرن كراب لينا بين شيئين ده وحصاص على دان كشكايو هذا قوم شكينا يقول لي إني ليكشفوا هذا وتوحي بين أي نقدان بنكبق هياب ولا مارك وحاس مارك وما ضحك له ساس ولا وحا قدسين هي قصة كله عجيبة هون مقلي أو إسلام
baa iyaduna wax sheegahay markaasay maalin bay show nin bay waxay subax soo orday waxay tiri waxaan ku riyooday hebel oo balaayo ku dhacday oo shar uu ku soo socdo oo muxuu ahaa ay ishaaradiisu iyo farajkiisu ay inuu xolo noocaas qalo way soo orday gurigiisa bay timid xalay waxaan ku riyooday hebel waxa isku dhacayna halay tus hebel waxa la yiri hebel arigu barqiye meelahaas u jira waa baadiye markaas ka daba orday meeshii bay ugu tagtay oday baa iga sheekeeyay marka wuxuu yiri halkaas ka qayliso waxay tiri war hebelow war balaaya kugu soo socotaan arkay dhibaatadaas oo dhan baa kugu soo socota waxa faraj ku ah inaad neef noocaas qasho xalan ku riyooday waxa soo dhan bay tiri xalal la itusay ayda riyo ma dhahayso xalal la itusay waay na wuxuu yiri balkaali meel fog baad igala hadlaysaa warka sheegaysa war cajiib ah bal ii soo dhawow waa u soo dhawaatay haye maxaad shahaysaa hadii dhibaatada dhan kugu soo socoto bay tiri dhibkaana kugu dhacaya balaayadaas kugu soo socotay xijaabkaagan waa inaad neef noocaas waxaan dhan aad samayso aad qasho waay habarti markaas uu ceega ku dhigay ninkii kaligiis waa meel duruhu jooga ceegu dhab siiyay yaa ka fujin hadde say isaga gilgilinaysa markii naf u yaabtay ay isageena inay baqtido ka bawas ka sii daayay xaggay ku dhacday xogaa markay miir laayd bi soo miirsatay markaas wuxuu ku yiri dhageyso aniga dhibkay ku dhacay waa lagu sheegay xalay adiga saaka tan inay kugu dhacayso maxaa lagu sheegay waa yiri saaka inay mid aan kugu dhacay maxaa lagu sheegay hadii aad qayb ka warqabto meeshii marka inta ciid iska jiftay iska kacday buu yiri marka ninkan wuxuu leeyahay annaga qaybkan sheeganayno dadka inaan sumcadanada ka dhacdo ma rabno leeyahay waxyaabahan soo socda ugama sheekaynayno laakiin waxa uga sheekaynayna waxyaabaha qaybka nisbiga seen u sheekaynayna qof iimaan buu leeyahay markaas waxaan leeyahay hebel baa lagu dhahaa xaggaas aad ka timid xaajadaada waa arintaas aad u socotaa waxa ka maqalkaas jiraan seen ku ogaadu leeyahay waana run way xaqiiqa 100% waxaan sheegayo dhan buu leeyahay waxaan ku ogaadaa buu leeyahay waxaan samaynayaa qurbaan waxaan u qadimayaa jinnigi ilaan waxaan wax lagu ogaan kara qayb ma qaybka ilaahay bas og kan ilaahay subhanahu wa ta'ala qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah qaybka dhulka cirka ilaahay umba og cid kale og ma laha عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول بس يا إلهي غيب كيس وحوق الشيء كره النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسوح الله قل لا أملك لنفسي ضرا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب والنبي محمد ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير نبي محمد بعدها من محمد كفض بديه المركة سيدي كو قادان وسيم مركة ونن كان حقيقة هذا الشيء هي وحليه هي waxaan ku ogaanaa waxaan u qadimaynaa shayaatiintii qurbaan ninkan waan soo dhaafnay markuu shuruudan oo dhan oofiyay waxa u shaqeynaya 286 jinni oo isugu jira waan soo sheegnay cafaariid iyo marada iyo shayaatiin marka qurbaan baan qadimayaa wuxuu leeyahay shirki baan qadimayaa qofkii iyo ilaahay baan isla simahayaa ama asagaan baryahaya ama shuruudu igar baan u oofinaya markaasuu wuxuu u amri ciidankaas markaan kala dirayaa buu leeyahay jidadka magaalada dhan baan u kala diri anna halkaan iska fadhiyaa buu leeyahay nin walba marka ilaa 15 daqiiqo markii dadku iga dhiman tahay meeshay inta ii soo jiraan halkaas ay kula kulmayaan markaas shayaadiintan aan diray buu leeyahay qariinka qof walba weydiinayaan war xagee u socotaan suuqaas aan u soconnaa haye iska taga ku kala meesha maraya qariinka war xagee u socotaan isbitaal baan u soconnaa iska taga xagee u socotaan xagga iska taga xagee u socotaan sheekh xamed baan naga u soconnaa kuwii marka leeyahay war bal haye ninkan magaciis hebel xaguu ka yimid magaalo hebla xaajadiisa maxay tahay gaari baa laga xaday ayaan hore xagee looga xaday magaalo hebla isaga boorsuudaan waxbuu sheegay magaalooyinka halkaas looga xaday haye marka gaarigi hadda wuxuu leeyahay markaas waxay sameynayaan cafaariidoodii buu imaanayaan كلها واللحظات بوليها مركا أقل من دقائق بيوحنا نقسم منها عفاريد دي بهدنا دوليسا مقادم كسب بحي هذا هي قاريجي شيادين تأيجا سيقانة زعمة دي قارينا دي دتك حبايبي هذين هيان قاريجي ماشي يلا نبي صار كهيان يعني كان وحو هاي أردن قفكي سوس صعد مركا واحد صار وحوير وأنتو سنة خلال 10 دقائق 5 دقائق بيكون معنا المعلومات كاسرا ويجي بالي كين بيرانيك مركا قفكي بس صار هل كان صامر هي وإيماني
soo dhawaan dhibri hebel soo dhawow oo sheekh magacayga miyaa taqaanaa magacaaga waan aqaanaa hebel hebel baa lagu dhahaa magaal heblaad ka timid oo yaa kuu sheegay aniga hadda qaybkaan aqaanaa weli ilaahay baan ah magaal heblaad ka timid oo xaajadaas aad u socotaa xaajadeedana ma ogtahay haa waan ka warqabaa waa ogtahay gaarigaa meel hebla lagaa xaday booliskaada aaday waxbana ma aadan helin haddaad maalin hore noo imaan lahayd waxa waan kuu hagaajin lahayn arrintaad dhan waan kuu dhammayn lahayn bal carruurtii ka warankii kaa xanuunsanaa oo cunugaygana ma ogtahay sheekh haa waan ka warqabaa wax walba kii maraykan jiri ka warran baan dhihi buu yidhi ma aqaan suudaantan in maraykan loo aadee kii maraykan jiri ka warran baan dhihi buu yidhi lacag ma kuu soo diray maya lacag iima soo dirin wuu kuu soo diray meel heble $2,000 buu kuu soo diray laa ilaaha ila allah waa run buu yidhi markaas sheekh wallaahi wuu ii soo diray buu yidhi laakiin wuxuu yidhi wax walba waad og tahay wuxuu yidhi waxaanoo dhan qalbigiisaan gelaynaa buu yidhi intaanaan annaga wax ku qancin baan qalbigiisa gelinaa si uu u aamino inaan weli ilaahay ahay oo wax walba aysan iga qarsoonayn qofkii markaan wax walba uga sheekeeyo baan dhihi buu yidhi inaad israfaadisaba ma ahaynood boolisi waxaas ka daba laabatee markaad wax weyday ama dhibaato kugu dhacday maxaad annaga noogu imaan weysay ana waxaas oo dhan ka warqaba markaas waan kuu dhammayn lahaa waxaagee sheekhow haddaan imida bal hadda wax ii sheeg haye waxaas keen shuruud buu marka dhiib haya neef noocaasa keen lacag intaasa bixi waxaanoo dhan samee neefkaan keen halkaana lagu gawrici bismillahi lama dhahayo anaa gawraci buu yidhi neefka marka afkaan bir gashan hayaa buu yidhi saanan bismillaahi u dhihin ilaan waxaan shayaadiintaasaa iska leh weligiina wuxuu leeyahay qof dhahaya neef madax madow wan maaragtay bari sidaas leeg bari saas leh wan waxaas dhahaya haddaad aragtaan buu yidhi waa sixirooluu yidhi min awalihi ilaa aakhirihi marka xoolihii markii la qalo wixii dhan la sameeyo wuxuu leeyahay marka ayuu farajkaaga waxaa weeyaan gaarigii lagaa xaday meel hebluu yaallaa booliska qaado halkaa u raac halkaas ka soo qaado dahabkii lagaa xaday meel hebluu ku xabaalan yahay waana run buu yidhi marka waa ku xabaalan yahaba gaarigii meeshan sheega ayuu yaallaa buu yidhi laakiin qayb ma aha wuxuu yidhi wax weeyaan waa tacaawun anigiina sumcad baan ku helayaa meeshaan iyo adduun jinnigiina cibaadu ku helay buu yidhi oo mid ilaahi subxaanahu wa tacaala yaa macshar aljinni qad istaktartum min alinsi وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض إلهو قاركنا قارك كلو كرة حيستي أدونك أنت جوجني كوانا جاه يوحكون العق يو أدون بيكوهلن جنينا هذا أنت أسدد بلو عبادة سينا هيو ومد إلهي وشرك ساس وجود هذا نسي مركا أساسا نسور راح يسني إليه مالة قيامه وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا محين نقطة مركا جواب مصير كودي مال كودي قال النار مثواكم خالدين فيها هل كاس يقول تجاهين مركا تعاون كاس بانا دح مريب وليه هل كاس مركا عن علم الغيب كان شيء إن هل كاس كسب حيبوير وحيري وحناها ساحر لكن قفلو شيء كرينا ساحرها مجرم بوير مولي إلهي قطبي دتك أنا بري هيان مياه سحر ولا dadka laga manaadicin karin buu yiri laakiin aniga sixiroolan ahaa buu leeyahay qisadu ku islaamay waan sheegi doonaa ilaahay ba sababta uga dhigabo waa sixirkiisi mid kamid aha yaa ilaahay sabab uga dhigay inuu ku islaamo inuu ku toobad keeno ku islaamo ficlan de gaal buu ahaa markaas wuxuu yiri sixiroolan ahaa dadkuna ima aqoonin sixiroolannimadayda markuu wuxuu yiri waxaan adeegsan jiray shayaadiintan oo dadku u diri jiray عجائب فربضان باكوسكن مركا قابكو سيادينتا وديري جيري جينيغا مركا وددكا غلاهايو ميدو كتمنهايو قفكان اسغون اذكار اخرسن بو اسغا تمن مسوق دخغلي ميدنا waa mid maaragtay un sikal u yimaada midna waa mid ay sixiraalayaal iyo shayaatiin insi ay soo dirto waa shayaatiin jinni shayaatiin insi ay soo dirayso asaga marka midka ugu khatarsan waa kan de shayaadiinta insiga ay soo dirayso qofkan ku soo dirayso wuxuu leeyahay marka qof aan aathartiisa qaadano oo wixii dhan ururino oo sixirka ay dhiman tahay in la fuliyo waxaan dirinaa buu yiri shayaadiinta aadi qofkii inay soo dhibaan qofkii laba mid waa qof diinta ilaahay ku toosan oo adkaartiisa ilaahay u xafidsan oo adkaarta ilaahay akhriya qofna waa qof aan adkaar ka warqabin midkaas dalaq way iska dhihi qofkii laakiin adkaarta akhrina hayay shayaadiintii markay
u dhawaadaan wuu ka qarsoomi maba arkahayaan buu yidhi markaasay nagu soo noqon hayaan buu yidhi war sheekh shay ninkii waaba arki weynaba saa u arkayni markaan u dhawaanay khalaas waaba naga xijaamay haddana maradadaan diraynaa buu yidhi almarada waa nooca labaad waa ka xoog badan yihiin shayaadiintu yidhi وحفظا من كل شيطان مارد المرد عن دري نابوي مرد دي مركا قفكي ويقول دوانا هيان كوي انت وجرسان ان وقدو كدو ويجرسان هيان لكن هذا هو كحجام يا ابوي هذا الكيسان ويمقليا وانسان كمحافظ على الاذكار وينوس نقون هيان بوير وحم حولي عالم الجن بانكو ان اذكار سان ددك وحفظه intaan sixirolaha caalamul jinni baan ka soo bartay buliya qabla sunna intaan toobadkeena sunnada ku arkin markay nagu soo laabtaan maradadiina arintiisu way culus tahay qofkan marka afaariida la diri al-ifrit qala ifritun min al-jinni shayaadiinta kamid yihiin waa adeegahaya afaariidan dirina bir hadana waa nooci u xoog badnaa afaariidi markay aado oo u dhawaato way arkayaan mana ka qarsoomahayo لكن ملائكة إلى سي أركهيان أيها ملائكة قف كان دوري سي أركهيان ما نقول عنني ودواذان أيجينا وصلنا قرنا هيان بوير مرك ونوع قدرنا عفاريدها وحيليهن شيخ نينكي ملائكة با إلى نيسا كوان مركا كوان كلام جني قلنا قنابير لكن كوان عفاريد الروحانيين بانونا قنابير في الاصطلاح روحانيين waxaan ku yiri oo soo raxaan adinka malaa'ig ma tiidin waxaan lagu qanciyo yiri markii la barahay waxaan inay sirta khudam aayat khudam suura yihiin oo ruuxaan yihiin war soo adinka ma tihiin malaa'ig adinkaba marka wuxuu yiri ha malaa'ig waa nahay laakiin malaa'ig ciidam waa malaa'ig waa weyn oo ku ilaalinayo iman ixtiraamayna marka ma u dhawaan karno markay ka tagaan baan ninka soo qabanayna sidii marka wuxuu yiri qofkii marka xaaladiisa way cuslaatay maxaa lagu sameeyay waardiyahaas adag ee qofkaas muslimka ilaalinaya ee aqwa anwaac jinni ay waxba ka qaadi waayeen ma lacag ku bixiyay qofka muxuu sameeyay waa markuu guriga ka baxay bismillaah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah markuu gurigiisa galahay bismillaah walajna bismillaah kharajna wa ala rabbina tawakkalna bi markuu dharka gashanahay bismillaah buu alxamdulillah kisana hada thawb markuu subaxdii joogay allahumma bika asbahna wa bika amsana adkaarta sabaxda akhri habeenkiina galabteena adkaarul masaab akhri habeenkii hurdada markuu saxna adkaartii akhri lacag ma bixin ciida meel kale kama keensanin adkaartan oo ashal ma takoon bal miraheeda fiiri halka way marka qofkii wax kale ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa waa sahlan tahay xifdiga ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan annaga isdayacayna ma aha إلهي وحنا نسكو إلى النسية قفك مركم حالة سمين بوير حالة دي سوى عذبتها وحنا سميننا قربان كلا ألف كلام قدمينا مركاسا وحنا دير النابوير الشيطان ميت كلام دير النابوير وحوليها وذات كاس وأجلس أن سحر لها مقعي سماء قونين بوير لكن مركان توبت كاني بان حديثكو أركيب وليها والهان بالرهابير والهان وحوليها هي ومتك وسواسية ويسد طهارة فعلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسو أروري ابن ماجه إن كسو أي ضعيفين علماء ابن ماجه رفتك وليه رفع يسام إن النبي قال له مرفوع صحيحا معها لكن هو موقوف على سعيد المصيب أو ليه هي والهانك وسواس إن شياطين للوضوء شيطان ويسد وحلالها شيطان قفك وسواسين هي فاحذروا وسواسه والهان مركه شقدي سوا ما حبير مركه وذات كان شيخ حامد وحليها شقدي سوا حوايه قف كان انه ويسده كوسواسيو انه اذكارته كوسواسيو انه الا وسي اذكارته قف كان markii malaa'ikta shayaatiintii wax ka qaadi weysay mid muwaswisaha loo soo diray laba siyood buu ku sameeyay marka mid waa mid inuu ilowsiyo haduu ilowsiin waayo inuu wax ku daro ka dhimo inuu ku waswaasiyo wuxuu leeyahay مسخوش مركات جليسو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ده بالغوير حضاد إن أعطينا أخرسو أما أد أخرسو محوها قول الكافرون أما أد وحنا أخرسو مكو حجابي سوليه النبي صلى الله عليه وسلم أنت أنا شيء أنتو شيء مر بل وحليه
هذه بسم الله ده لويري بسم الله الرحمن الرحيم هذا عرضها لتدخل الشياطين وها احتمال الشياطين يصرح قشو وحي ده لويري انت كو كافتون شيطان كاس شقيديسو دhan waxay tahay inuu wixii qumana wuxuu kaaga dhaxdaro alxamdulillah meeshaan dheh alxamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala rasuulillah intaad ku sii darayso atharkii adkaartaas ay lahayd buu yu ka qaadahaya urda litadkhul ash-shayatin lianna anaga adoom ilaahay baan nahay saan dheh baan lagu yiri markaan sidii dhehno buu ilaahay subhanahu wa ta'ala noo wafjinaya nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabigu wuxuu baray adkaarta markuu seexanayo markaas wuxuu yiri allahumma inni aslamtu nafsi ilayka ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبالنبيك الذي أرسلت صحابي وآخري وحكيري بل كسر على هذه صحابي مركز كسر علي سيدو الله يبوصر النبي صلى الله عليه وسلم مركو مرة هي آمنت بكتابك الذي أنزلت وبالنبيك الذي أرسلت بوحير وبرسولك الذي أرسلت ماشي وبالنبي كهد وبرسولك كبدلي النبي وحير مايا وبالنبي كده بل هذا رسول النبي محيو كل دوين النبي محمد إلا بضبا صلى الله عليه النبي محمد معها لكن أذكرت وحال يري سيدين كل هيدا سيدين الله يمرك لنا بسم الله وقاف صوت هذا هذا الرحمن الرحيم محي لا هاي دبا الرحمن الرحيم دب ملها لكن متابعة اللي قاعد بيبقى كامغن النبي صلى الله عليه وسلم صلي سوال الربا لكن ما يلوص لهين هادين وذات كسمك حبك الشكين وحويان الشيطان وجع لي هي البدعة الإضافية وشيء مشروعة وغير ميلان مشروع هين لديهم بدعة لما نوعا بدعة حقيقية وقف كان أمركي هربا والدين تكسر درس وحبك تشيرين بدعة وبدعة إضافية وشيء مشروعة لكن قاوا مشروع هين بالوسمي أو ميلان مشروع هين بالدقي بدعو يسوب بدلي مرك أثر كي شرعي هانا ما يلنا هاي وحب بدعي يسوق بدلي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يا كصب حي مساجدك أثر وريي الدارمي الإمام البابن والصحيحي عبد الله بن مسعود وحكوري أبو موسى الأشعري بمساجدك وحكو أركي حلقوين بدن أفردية حلقوين بدن بأفردية حلقة كسمرك دغح تورها دحتا الله نينو دح فديا مركاس وحو ليه سبحوا 100 بقول جر سبحان الله دها حدنا هللوا 100 بقول جر لا اله الا الله دها حدنا وحو ليه ما ركتي كبروا 100 ساس بقول جر دها مركاس ايغنا سبحان الله بقول جر سوريدا قاس سوريدا هي اصحابتي بانول ابن مسعود يا ابو موسى الاشعري أبو موسى الأشعري وكسب بحي ابن مسعود قري وسيمد عباره هرت كسوق هي مركز صباحي وحيري عبد الله بن مسعود ومساجد وحن كو أركي ضد نوع سمينا هي مركز وحو كويرت محاد كتير مركه سو وحير وحبا كما دينا أذان كل سوق هي ومحاد قديه ويذيب ويري ور أنا بلان إذن كقاضي إن يسن حسنات كينا دومينه سيئات كينا تريا حسنات كينا تريا وما باهنا ملاك بوحي السارنا وترينا سيئات كينا تترسان كتبت كان أرضا ساس محو قديه ويدي بلنا كعبير مساجد كو سؤالي لمن كيو سيدو فديو سوكر استاغي مرك حلقات كميدو كور استاغي مركز وحو يري دغيستا إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم نبي من الذي يا أصحابتي سهدي وذي هدي كفي عنان تكسوا أنتهين وإما أنكم مفتتحوا باب الضلالة يئنا باب بعد إنما فرنا يسان حبك من الحياة مركاسي وحيدهن سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير إلهي بأن نزهنا أنك خير بانوتشدني وحكى الأمان نشيدين خير بانوسعني سبحان الله كلي أنه أنك وحكى لما سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله كلي وإيه وأن خير وحن ربني مركاسي وحيد وكم من مريد للخير لم يصبه وما يقع خير هذين سو أن خير كي هلين خير كمركب وحليه خير كلو ما هلو رادين كليه خير كأن وددي سلم مر نيدا وناكسن وشرطي وحكلو شرطي وأن كدع شرطي جاس المتابعة سبحان الله ما هم مركب باب كالضلالة يفرفرتين سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ومدينا لفريبة إن أفكا كوها إنه لا يزال لسانك رطوا من ذكر الله إن لا يري هذا دبكو وامحي وقابك وسمينها يوم حلقاتك وفريستين يسورد بقولك قاب كانوا سمين أصحابتي مية كخير جعليهن مايا وهذا محا قاب كانوا سمين إنسان
nimankii wuxuu leeyahay raawigii aharkaa warinahayay badankooda maalinkii Nahrawaan raggan laynay bay ahaayeen buu leeyahay Nahrawaan waa dagaalkii khawaarijta waa nimankii Cali ibn Abi Talib gaalaysiiyay asxaabta dhan gaala ka dhigay oo xabad seefta u qaatay oo la dagaalamay oo Cali ibn Abi Talib uu laayay oo nabigu ku tilmaamay inay gaala yihiin oo diinta ka baxayaan wuxuu yiri nimankii maalinka xalaqaadka u fadhi badankooda maalinkaasaan kulay inuu leeyahay raggan kulayna meeshaas ay rag badan ay kamid ah ku jiray marka subhanallahi ma aha ibn Mas'ud wuxuu ku inkirahay subhanallahi ma aha alxamdulillah ma la ilaha illa allah ma laakiin waa qaabka loo sameeyo dad baa tukada dawaa'ifta qaar kamid ah way tukanayeen markaas markuu tukado bismillah allahu akbar alxamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad markaasuu rukuuci subhana rabbiyal azim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad markuu sami'a allahu alhamd allahumma salli ala ali muhammad markuu sujuudo sidii oo kale qofka salaadiisa saxmiya masalliga ilaahay baa salaada ka qaribay marka salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam salaada ka qaribay salliga nabiga salaada kama qaribin ee meel aan lahayn meel uusan lahayn buu dhigay marka salaadiisa ka qaribantay haddii lagu dhaw marka war salliga meeshan ma laho saliidiid baa tahay ma aha marka jawaabtii salliga waa cibaado waay meel bay leedahay dhikriga ka dhigo inta jidkaas nabiga ku salli meel ka sad fadhido ku salli nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay qofkii dhikrigiisa oo dhan ka dhiga salligiisa in oo hamigiisa ilaahay uu ka qaadahayo dambigiisana uu dhaafahayo hami oo dhan ilaahay uu ka kaafini dambigana ilaahay uu ku dhaafi salliga nabiga daa'imto meel uu salaana daa dhigtana haduu rabo waa kan hadda salaad dadka ka burinahay wadaadka laftirkiisa sheekh xaamudka qiso kale sheegay wuxuu leeyahay nin baa yimid markaasuu wuxuu yiri qul huwa allahu ahad sheekh hadan salaada ku akhriyo ka waran waa intuu toobad keenay buu yimid buu leeyahay markaas waxaan ku yiri leeyahay qul huwa allahu ahad waxa waaye fadli dheeraad ay leedahay salaada ku akhrisa dhib ma laha saxaabigii ba ka sugnaatay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri saad u jeclaatay ilaahay baa ku jeclaaday markaas wuxuu yiri ninkii waa dhan buu iga maqnaa waa dhan buu yimid markaas wuxuu yiri sheekh aniga wuxuu yiri hadda waxaan gaaray heer salaada rukuucda xitaa qul huwa saddex goor ku akhrin inta subhana rabbil azim ilaha quraanka ajirkiisaan rabaa inaan helo rukuucda dhexdeeda markaan sami'a allahu dhaho quraanka ajirkiisaan rabaa saddex goor baan qul huwa akhrin markaan sujuudo sidoo kale ajir kaamil aan rabaa sujuudo kale ajir quraanka kaamila salaadii markaan tukado meeqa ajir quraanka la qoray waxaad xisaabin kartaa ma aha waxaan yiri war salaadaada waxba kama jiraan sheekh ma qul huwa salaadeeda burinaysa aniga qul huwa allah ahad quraanka suurada ugu fadli badan ee ta'dilu thuluth alquran ma salaada burinaysa marka warsha wax mashruuca hadan meelan mashruuc ahayn la dhigo waxa weeyaan waxay soo bedelayaan cibaadnimo ka baxayaan salaadaadi way buraysaa nabigaad khilaaftaa burinaysa shay mashruuca meelan mashruuc ahayn dhigin qaban mashruucayna oo sameeynin wuxuu leeyahay ninkii waadan baan arkay asagoo shaydaanka suu sii waday markii dambe gaaray buu yiri heer salaadii dhanba uu yiri waa la iga dhigay salaadii oo aniga mukallaf ma ahi waasil baan noqday muxuu ahaa cilmi lawx mahfuuz kan yaan itaalacada yaqiintii baan gaaray taariikhdan walaga kor qaaday shaydaanka marka meeshku galay waa halkaas mawduucanagi marka wuxuu ahaa qofka wuxuu u soo dirahayaan walhan shaydaankaas shaqadiisu waa maxay inuu amadkaarta qofka ilowsiyo ama qaab aan qaabkii ahayn uu ugu dhaho weysadii inuu ku waswaasiyo saddex goor dhaq inuu waswaasiyo afar ku celceli haddaan saddex ka badinana qofka hadduu camda saddex uga badiyo waxaa soo rartay faqad ictadaa wa asaa wa dhalam weysadii saddex goor baad dhaqaysay waa cibaado kaamila haddaad afar ku darto minta safraada ku daraysa camdan aad ugu darayso waxaa waaye dulmi waaye waa xadgudub waaye nabiga sallallahu alayhi wasallam ku tilmaamaya faqad ictadaa wa asaa wa dhalam waana xumaan waaye saddex ka badinin saddex baa leeyahay ka badinin adiga marka salaada ka baxdo subhanallahi saddex goor afartan hadaan iska dhameystir maxaa dhib ku jira saddex goor hadaan afartan aad dhaho 120 noqonay meesha 99 may waad khaldan tahay maxaa hadii saan ma lagu yiri sidii dhahbis marka wuxuu yiri ficlan waxaan walhaanka u darinuu yiri oo aan waxa weeyaan markii uu adkaartii qofkii wax ku daro ama uu wax ka dhimo ama uu iloobo malaa'igtii baa ka tagaysa marka malaa'igta ka tagto wixii baa loo diri hadii kaas uu kari waayo yiri oo qofkii uu soo istaago sunnadii sideeda u qabsado shaydaan kala dirinaa buu yiri wuxuu leeyahay sidoo kale waagaas an muxuu ahaa gaalka ahaa sixroolaha ahaa
ma ogeyn buu leeyahay magaciisa ma aqoonin markaan toobad keenay baan bartay xadiidtan ku arkay buu yiri khinzab baa lahaa waa kan dadka salaada ka waswaasiya nabiga sallallahu alayhi wasallam noo sheegay qofkii buu soo galay salaada ku waswaasini wuxuu tukaday wax kale ma kala garanayo halkaas marka haamaas afka taagi munaasab wuxuu yiri haamaasiga xitaa intaanan sunnada ku arkin in shayaadiintaas ay ka damayso khinzab ka damay waan halkaas aan ku bartay caalam shayaadiin ma ka bartay buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam waa kan noo sheegoon yiri ida تثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع هامانسي أفكال تاجهيو شيطان كحقي سيكا هاتي قفكين مركو هامانسن هيو فليكظم حقريو ما استطاع أنتو أبوذا أفكا سوقبو هذا كافة كتنك عنت كل بوذا أفكا سار شيطان خلقا سوكا قلابو قفكا وحليها بل في رسول الله قف هدو هامانسن صدح أفر بايس لها هامانسن يسل مركيبا خنزبا ميشا جوغ معنا waxaas oo dhan haday kari waayaan qofkii haday ka uu ku guuleysto wuxuu leeyahay dhowtii malaa'iktii baa ka tagi hadhow marka waxa uu iimaanay shayaadiintii intaas oo dhan hadii la kari waayo qofka arintiisa way culus tahay suxarada taqaana say dhahayso laakiin waa way ka caajiseen ogow waxa lagu caajisay waa maxay oo suxarada dhan ay ku hartay waa dhikriga ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo iltizaam bis-sunnah shayaadiintana asaga xitaa wadaadkaas marka la gaalisiinahay meesha laga weeraray waa naqdu tawxiidka in laga buriyay markii tawxiidkii laga buriyay umadan kale tan maxaa lagu malaa'ikta looga ceyrinaya waa ittibaacu sunnah oo laga leexinayo marka dabcan wadaadku markuu soo islaamay wasaaya badan buu bixinaya waxa ugu muhiimsan hadii qofkaas ay galaan buu leeyahay shayaadiintaas oo hadhowti dadka ruqaada ah wasiye marka muhiim siinaya dadka quraanka ku tufahaya ama qof hadal quraanka ku tufiso jinn uu ka hadlo ayuu wuxuu leeyahay dardaaran waxa xaqiiqahan ku sheegaya buu leeyahay shaydaankaas qofkaas ka hadlay inuusan run ku sheegeen haduu sixir soo diray run inuu ku sheegay hawga fadhin buu ku leeyahay maxaa yeelay buu leeyahay wuxuu leeyahay anigaas markaas sixirolaha waa la ii adeetiyay jinnigan qofka aan u diray oo galay ولي أديتي يا أديتي زعيم جنية أو روحاني لو يقانو روحاني واحد لو بحي وحي ردتكم بدي خمرة مركي عبها هيان وحي بحنا يان المشروبات الروحية فوائد بكيا يا ربنا الله بحسان لو عررين هذا أنا هو جني وحي الموت على العرري مركز الروحانيين بيبحيان بو يردتك وأنا جني وحي مركز شيطان كاس قفك كجرة حضور شيء السحر والله سحر كان كدم بيي وحد لها يا عقوبة سواد دل بو يرد waxaan dilahay zaciimkaas uquba kala ma lahan buu yiri ayaga is-edbin kale ay xarigi midna ma lahan buu yiri waa isdilaan buu yiri waa khibradan ka gaaray buu leeyahay marka waxaan looga fadhin buu leeyahay in uu run sheego oo uu ka sheekeeyo qofkii waxaan ka dambeeyay sixirkan meeshu ka yimid halkaas loogama fadhin mustaxiil waayu leeyahay hadii asagii waa gubanahaya quraan baa lagu daldalahaya marka hadii meeshan uu ku baqtiniye muxuu sameeyay wuxuu sameeynayaa buu leeyahay qariinka qofkan ku jira yuu wareys qofkan qariinka la socdo jinniga ah wareysanaya markaas wuxuu weydiinay qofkan cadaawad ka dhaxayso dhibaatooyin ay ka dhaxayaan qofkii markuu ka wareysto ayuu marka hadlay wuxuu leeyahay waxaan sheegayaa sixirkan waxa wixii ka dambeeyay yaa ka dambeeyay hebel baa ka dambeeyay dhibaato sanaasaa ka dambeeyay waxaas buu sameeyay halkaan dhan buu ururiyay halkaas marka aniga ka socdaa xaqiiqatan marka wuxuu leeyahay wuxuu ku sheegay kama jiraan hadduu sixirkii sheego sixirka meeshii hal arka laga soo bixiyo laakiin hadduu hebel baa sixir ka dambeeyay weligiis run ma sheegayo yiri waa been buu yiri qof qarinkaas uu weydiiyay qofkan cadaawo ka dhaxayso ama la tuhmi karo in maaragtay ay wax dhaxmari karaan markaas uu dhihi waa hebel maxaa arkaynaa marka dad badan oo dad quraan ku tufa waraaqay qalin baa la qaadani inta qofka waxaan ka lagu qori wuxuu sheegayo dhan waxa waaye wuxuu leeyahay khibrad caalam aljinna ka keenay buu leeyahay inuu san run ku sheegay hadduu run ku sheego waa la dili intii la dili lahaa marka wax weeyaan intaas ku iftiraanaya halkaas marka wasiyadiisaas marka uu ku sheegay wuxuu marka aan ku khatimeynaa calaamad saaxir wuxuu leeyahay qofka saaxirka calaamad buu leeyahay walow isan saaxir sheeganina wali ha sheegto إلى أن وحلا أنا جاب ولي بال إيه قاني لكن سحرالنا ها سي مركا عندنا وقت منه أولياء بل سحرات على مدى هذا قاتل وحليها كو هذا دركتنين
qof u yimid oo uusan aqoonin hebel baa tahay oo hebel baa lagu dhahaa wuxuu yahay u sheegahay waa sixroole ogow buu leeyahay dariiq kale ma lagu ogaan karo waxaas shayaadiintaasna qofkaan uma shaqaynayso ilaa uu sixroole ka noqdo wuxuu leeyahay nin haddaad aragto meel fadhiyo oo qof markuu yimaado dhahayo magacaa hooyadaana magaceed waa sixroole leeyahay hooyo magaceed wax weydiiyey waa sixroole buu leeyahay muxuu u weydiini sixirka wuxuu yiri maba lagu sameeyo magac aabe hebel lagu ma sameeyo hebel ayaa lagu sameeyaa buu leeyahay lianna wuxuu leeyahay hadii hebel lagu sameeyo qof walba hebel xaqiiqatan ma aha dadka qaar baa waxa jira macnaha aabihi uusan sax ahayn boqolkiiba boqol qof walba ma aha laakiin hooyada qof walba waa la hubaa qof walba lama hubo boqolkiiba boqol inuu hebel yahay laakiin hooyada waa la hubaa haddii marka sixirka wax khalad lagu sameeyo wuxuu leeyahay waxba ma qabanayo walidaalika suxarada wuxuu yiri saysan sumcadooda u baabi'in waxa la hubay sameynayaan hooya la hubaa marka heblaayo un waayo haddaad aragto yiri marka weydiinahay hooyada magaceed waa sixirolo yiri caalamka wax kale waxaas isticmaal ma laha kitaabaha kuwa kale ruu yiri oo u fiiriye dadka qof markay u yimaadaan waa sixirolo yiri waxaan dhan waa furuuc buu dhahay asalka waa sixir jinniga dhan wada shaqeynaya ma yakhdimuun illa li saaxir waxyaabaha marka ay ugu shaqeeyaan waxaana kamida marka oo inuu kitaabaha rogo meelahan ku wax ku qora gacanta wax ka soo daadiya waa sixroole wax kale ma jiraan buu yiri nin salaad casar baa la qaadaa ku haya waa sixroole yiri asaga shuruud laga qaaday xakan salaad casar inuu tukanin هذا صلاة العصر ومدي ماشان وفديا مساجدك وذاتكين هالكانوا جوجاي شيخ ما تكون اسميها بالله وحير مركه وحالده والوقاده adiga maka lagu geeni dadka makan ku soo koodaade qaar wuxuu yiri iska fadhiyaan ruuxda la qaadaa bay dhahan laakiin aniga wuxuu yiri wali weyn baan ahaa ruux oo jasad baa la qaadi jiray yiri intuu iimaad caadi sheedan gacanta isaaro ay qaadi buu yiri xaguu geeni maka ima geen karo yiri wax ma ka geen karo dad bayaan ma jiraan buu yiri shayaadiintaas laana waa gaalo waay makana maxruus min muxuu gaalada sida gaalada insiga ilaahay uu diiday isu gali karin oo ugu dambeys maalinka ilaahay soo dajiyay haladiina aamanu inama almushrikuuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da aamihim hada sanadkaas wixii ka dambeeyay gaal bini aadam looma ogolo sidaas kale gaal ma galahayo ma aragtay jinni ahna malaa'ig ba ilaalinaysa oo sheekhan la kacin xaqiiqinaan ama badahaas bayna geyn buu yiri ama muxuu meelaha kale وبكي قادان وجسد وروح قادان بوير فعلا وانا قادي جيران بير انيغا شيخ هادو هدنا اسلا markii baa la soo celini maca uu yiri meeshan joogay iyo maka salaada waxa laga yaabaa maghribka markay maka galahayaan in casar anagana loo aadimo leeyahay wax is weydiinayaan ma lahan buu yiri dadkii marka waxaas kale wax sameeyay dad aragtaan buu yiri asagana waa sixrool yiri wax kale ma aha xirsiyada wuxuu yiri kuwa leh calaamaad kan afargeesiyada iyo khaatimi xidigaha wax isla wada sixroolayaal buu yiri leena waa khawaatim kulligood wuxuu wax meesha ku wada qoran waa kuwii habeenkii la tusay buu yiri an khalwada ka baxay kuwii habeenkii la wada tusay waa yiri markaasuu qisa cajiban ku khatimay inuu sheegay xajbiyaadkaas anaga kuwa naga showayba ka adag yihiin nimankaas qarba afriqi waxay isticmaalaan وحرسية وحجبيات كلا شيء هاي حرسية وحي استعمالان بو يريد حتى قفك من دي هدي لو دفتو اما حبد لو دفتو ايسن كود عينين او جن ويلالين هاي انتو تواد كاني marka wuxuu yiriyaan safray oo waxaan aadi buu yiri mali wadanka mali dhahan tagi buu yiri masaad baan ka istaagay markaas wuxuu yiri marka wuxuu leeyahay طلاب العلم wuxuu kula talinayaa xirsiyadan waa shirki dhaha laakiin waxa ma xijaabaan hadihina anaga ku naga ishay waxa laga xirtaan laakiin dadkaas waxay ka xirtaan muxuu ahaa xitaa bini aadanka waxay gaarsiin hayaan qofka haduu xirsigaas ilaa uu ka xirtana waa shirki wuxuu leeyahay marka masaad baan ka istaaga waxaan yiri xijbiyadu waa shirki masaadkana baa isla kacay buu yiri markaas ay dhahan gaal wahaabi ah tahay nin baa istaagay oo toribul isla baxay markaas uu saan isku dhahay buu yiri bal kaali mididaan gali buu yiri adiga xijbi baa wax tarin baan xirsi waxba tarin madlaha kaali toridaan gali
ummadina ma isla kacday waxaan yiri war aniga qariib baan hadaa rabtaa way dilaysaan laakiin waxaan idin sheegahay hal iga dhageystad waxaan idin waa shirki waxaana daliil u ah quraankaas ilaahay oo kitaabaha masaajidka idin yaala waa quraan ilaahay buu yiri xijibgaas aad haysatana quraankaas ku zuulahaya hadduu quraankaas ku zuulu yiri ma ahayn wax xaq ah maxay yeelay xaq uu xoojiyaa quraanka ilaahay wax xaq uu xoojinaya laakiin quraanka wuxuu buriyo waa shirki ma quraanka ilaahay baad ku burin kartaa waan ku burin karaa buu yiri ha bal ku buri waa kana buu yiri marka wuxuu yiri hadda adiga midi kuma gelin kara hadhow bal bahalka iska soo furo cad hilibana hala keeno isla markii wuxuu yiri waxa la keenay adin ari bahalkii baan ku xirnuu yiri midiya la soo qaaday waa la galiyay ma bidid ma taabanaysa sirriq bay ku leedahay afka ma gelin karto wuxuu yiri marka waxa inuu yiri saddex qof soo istaagto iyo muadinkii dadku wada xanaaqsan yihiin buu yiri qof walba xanaaq ma aha waxa inuu yiri war suuratul baqara ama quraanka ma ka akhrin kartaa suuratul baqara war korkan ka aqaanaa buu yiri wasaafaat adigana korkan ka aqaanaa saddexdiina bal anigu wuxuu yiri waxba aniga ay dagaaline adiga kala suuratul baqara akhri adna suuratul saafaat akhri adna suuratul dukhan akhri muadinuna adinka balwad ku celceli adinka hilibkiina meeshaan yaala oo qof walba intuu isku day oo midida gelin waay bal wuxuu yiri nin askari oo yarna xabad ku dhuf xabadii buu ku dhuftay dhinaca ka martay ma galayso yiri quraankii baa la bilaabay si loo wadi wuxuu yiri aniga afkan kala qaaday bal aniga fiiriyo yiri hada waxbaad hoos ka akhriday hay dhihine afkan kala hayaa buu yiri abbaar markii la wadi quraankii baan yiri bal joojiya haya hala jaray hilibkii mididii qarraf xaq uu kala go'ay hilibkii waxa yiri bal u kaadiya wax yar kadib sidii buu noqon doonaa haddana xogaa baa la joogo wuxuu yiri hadda bal hadda gooyahay sidii kale ku noqday wax goyn kara ma leh maxaa dhacay bay dhaheen wuxuu yiri shayaadiin baa waxaan ilaalinaysu yiri oo mididaan iyo gadaal ka haysa ama isu dhigaysa xabadana ka celinaysa ficlan wuxuu yiri Suudaan qarbigeeda dagaalada junuubka ay la gali jireen ninbu ka sheekeynay uu yaqaanay oo arkay oo xijbi xaqiiqaha watay buu yiri ciidanka halkaas sagar xigala wir xabadna kuma dhacayso kulli dadka dameer wada daadanayaan asagana xabada xagga ka maraysa xirsigaas wataa buu yiri waxa yiri marka dhageysta bahalkan shaydaan baa ilaalinaya shaydaanna suuragal maaha inuu shaqadiisa ka fuliyo meel suuratul baqara lagu akhrinayo suuratul dukhan lagu akhrinayo suuratul saafaat lagu akhrinayo adinu ka socdo inuu shaqo ka hayo suuragal maaha marka wuu cararay buu yiri wuu cararay saasan markuu jarjarnay buu yiri laakiin wuxuu yiri shaydaankan wuxuu mukallaf ku yahay uu ku khasban yahay inuu xirsigan inta uu ishaysto inuu wardiyeeyo meelaha buu isaga uu qoraansan buu yiri bal inaan xirsigii kala jarjarnay iyo in kale hadduu weli ishaysto yiri wuxuu ku khasban yahay inuu ilaaliyo uu soo noqday buu yiri marka adinki iska tagu yiri saddex kale yiri soo kaca iyo nin kale oo muadina saddex kale iyo nin kale soo kacay haya sidii bay quraanka u akhriyeen markaas kiina adin wala adimi hilibka hadana markaas yiri jooji acbaar markii wadeen waa jarjarmay hadana ninkii waday wuxuu yiri dhageyso waan furhayaa buu yiri bahalkaas hadduu quraan noqdo yiri kul lacagta wadankaas sheegay baan ka bixiyo yiri 3,000 baan bixinayaa buu yiri hadduu waxa ku jira uu wax sax noqdo meeshii baan ku furnuu yiri marka dadka hortoodii koo waxa ka soo baxday calaamada fargeesa ka soo baxday waxa ugu horeeyay qoran calaamada fargeesa markaas yiri war ilaahay ku dhaarshay calaamadan fargeeska quraanka iyo sunnada xagee way jirtaa meelna lagu ma hayo hadee si wadba marka waxa ku qoran buu yiri marka quraan lagu ciyaaro la googooyay maxaa ku qoran buu yiri inna a'taynaaka al-kawthara al-kaw bas yaa lagu ekeysiyay al-kaw inni ra'aytu 11 kawkaban baa laga reebay 11 kaw ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب كوا كقرن والقرآن كان بالقرآن واتقنان ميقا كمقن سديد حرفها كون ملك اسكو دريدهن maxaa marka shaydaanka marka quraanka lagu ciyaaro meesha isaga soo galay marka istizaa bil quraan munaafiqiintii asxaabta wax ka sheegtay asxaabta quraanka xambaarsan bay wax ka sheegeen markaas maxaa lagu yiri la ta'tadiru
قد كفرتم بعد إيمانكم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون marka quraanka lagu jaasjaasay ee waxa ku qoran laga yaabo in nijaas yihiin ayuu marka xafiday jinnigu saas uga shaqeeyay marka wuxuu leeyahay waxa xirsiye xirana ee calaamaadkaas ku qora waa suxara waay yaan la dhihin buu yiri waligiina leedin ku sirin jinni muslina ruuxanahan la shaqeysta suuragal ma aha jinni qof la shaqeysan kara ma leh nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu ugu baahi badnaa ciidan iyo wax uu u kaalmeeyo oo gaalada dibkooda ka hor istaaga isagoo dariiqo meel duura kaligiis iska marahaya ayuu salaatu kaday ilaa wuxuu gashka marka nafar min aljinni inay rumeeyaan وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضوا ولوا إلى قومهم منذرين مالك سيو عيدا وقم عرتيسنا وقبا هبدنا منا أديك سنين أصحابتينا وحب مركا جن مسلم وحليه هي وذات وحاس إيش قينا هي سحرك إلى السمين هي هو مسلم شيغان هي كجري وليه مسلم كإسلام كواد أركتين أنا قاس مسلم ما شيغان هي وليه مركا مسلم يا لو خلد وليه هي جن ما يمكن إنه أخذ مايه حتى كمسلم شيغان إنها شركة سمين موجية وحكى لا إيمها قاعدين هي وليه هي خدمة ذا مركا ما يمكن إنه أمارك جن وكشقيه بخدمة بدون خدمة جن كليه وحوشقي بلا خدمة بني آدم نبي سليمان بلا خدمة وشقي إلهي وأوسخري أنت وحي كسهري سورة قال ما هي إنه مركا الجن وشقيه هل كمركا وحكعد عالم الجن إن إله سبحانه وتعالى أن أقبض بادي كرنو شرط هذا إن أن هيسنو شريعة ذهن كنا هيسنو سيدي أهيد وحكا لن نحمر كرماله وحكا لا نلو سير كرو أولياء ماشي أنا وشقيان ماله وحاواي أذكارت إله سبحانه وتعالى ونبري سيدي تأنا أوضا شيطان كنا ماشي سمو نقصو قلي قف كان داد كان خير وجيتك خيرك اسكت داية ولا ما يلهي حقوك سو قالي مركا وح قدرت وح كدين ما بسم الله الرحمن الرحيم قدرت تعدي له هل كاسو كيمان هي مركا إله حقنا سبحانه وتعالى إنه نوافجي حقيقة توفيق ذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.